qisadan waxa ay dhex martay wiil iyo aabihii oo hal meel ku wada noolaa. Waxay ahaayeen dad fuqara ah oo aan waxba haysanin. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa timid islaantii lahayd gurigii ay ku noolaayeen. Waxayna ku tiri, maxaad u bixin weysay lacagtii kirada? Waxaa lagugu leeyahay 2 bil oo dhan. Dabadeed aabihii ayaa ku yiri, wax yar bal dib inoogu dhig. Xilliga la bixinayo lacagta waan ku siinaynaa lacagtaadee. Naagtii ayaa ku tiri, maya, ma dhici karto. Sababtoo ah aniga xitaa waan u baahanahay lacagteeda. Waxaana ka dhiganayaa biil. Waxay u sii raacisay hadalkeedii, haddii aadan awood u lahayn inaad bixiso kirada guriga, ku laabo meeshii aad ka timid, yacnii iga bax gurigayga. Wiilkii yaraa waxa uu dareemay faqriga iyo dhibaatooyinka uu qoyskiisa la daalaa dhacayo. Sidoo kale waxa uu dareemay in nolosha markasta aysan ahayn mid qurux badan. Kadib aabihii ayaa u soo dhawaaday. Wuxuuna ku yiri, ha walwalin wiilkayga, kaliya si fiican wax u baro, ha israacraacin waxyaabaha kale. Wiilkii yaraa ayaa yiri, kelimada ugu badan ee aan aabahay afkiisa ka maqlo waxay ahayd kelimada si fiican wax u baro. Aabahay waxa uu doonayay in aan wax barto oo aan meel iska soo saaro si aysan nolosha ila rogman sidiisa oo kale. Habeenada qaarkood aabe waxa uu weydii jiray xalka xisaabaadka la soo diro. Laakiin aabe ma ahayn mid iga jawaabo waxa aan weydiinayo. Inta badan aniga iyo aabahay ma wada qaadan jirin waqti, maxaa yeelay markasta aabahay wuu shaqayn jiray. Sidaa awgeedna waqti iskuma heli jirin. Inta badanna guriga waxa uu dib ugu soo laaban jiray subaxdii. Muddo yar kadib waan weynaaday oo waxaan noqday dugsi sare. Waxaa timid maalin aan wada sugaynay. Tani waxay ahayd maalintii ugu dambeysay aan imtixaan u fadhiisto. Aad ayaan wax u baran jiray si ay u timaato maalintii uu aabahay ugu faani lahaa. Anigoo jaamici ah oo ka qalin jabiyay mid ka mid ah jaamacadaha dunida. Waxaa timid maalintii aan aniga iyo aabahay wada sugaynay ee qalin jabinteeda. Inkastoo ay nolosheena ay dadka kale ka duwneed, teenu ma ahayn mid qurux badan. Madashii xafladeena ayaan ka soo tagay anigoo soo aaday halkii uu aabahay ku sugnaa. Aabahay waxa uu ahaa boolis oo ka shaqaynaya wadooyinka. Waxaa loo yaqaan taraafiko. Markuu i arkay aabahay anigoo sita dharkii qalin jabinteeda, aad ayuu u farxay. Markii aan halkaa marayo waxa aan soo xasuustay arrin aan koobjoog u ahaa, taa oo dhex martay aabahay iyo nin kale oo gaari sitay. Ninkani waxa uu ku dagaalamayay in uu gaarigiisa dhigto meel aan la ogoleen. Aabahayna waxa uu ku hadaaqayay, mudane, halkan lama ogolo in gaari la dhigto, ilaa uu aabahay ninkii ka kala tuuray. Maalinkaa waan awoodi waayay in aan aabahay karab siiyo oo aan karab istaago, kana caliyo dhurwaayada magaca bini'aadamka sito. Intuu soo istaagay ayuu aabahay dhankayga soo aaday. Markuu ii yimid ayuu ugu yiri, dhib ma lahan wiilkayga. Laakiin maanta waa maalin ka duwan maalinkaa. Waa maalin aan weynaaday. Waa maalin aan xaqiijiyay riyadii aan aniga iyo aabahay aan ku taamaynay. Aabahay ayaan u imaaday anigoo farxad la ilmeynayo. Waxaan ku iri, aabe, ugu dambeyn waan gaaray hadafkaygii. Dabadeed laabta ayaan keliyay anigoo soo xasuusanayo wixii aan yaraantayda isla soo marnay. Mararka qaar ma ahan maalin qurux badan, maalin ay wax walba hagaagsan yihiin. Maalintii nolosheeda ugu quruxda badneed waxay ahayd maalinkii uu ila farxay aabahay, kuna farxay guushayda. Qisadii xanuunka badneed halkaas ayay ku eg tahay, balse ii ogolaaw inaan wax yar oo nasiixo ah kula wadaago. Si fiican wax u barta, ka farxiya waalidiintiin. Bal qiyaas siduu noqonayaa jawiga hooyada ama jawiga aabaha maalinka aad qalin jabiso kana qalin jabiso jaamacadda, ama aad xaqiijiso guul aad in badan ku taamaysay. Adiga daawanayo ay su'aasha ku taalaa. waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkani. Fadlan haddii aad tahay daawado ku cusub kanaalka, rukumo oo subscribe taabo. Sidoo kale ha ilmaamin inaad muuqaalka like saarto. Mar labaad iyo mar saddexaadba mahadsanidin saaxiibayaal. ku soo dhawaada kanaalka Dunida Daahson.